الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام البرر، ثم أما بعد. اللهم وفق لما تحبه وترضاه من القول والأفعال والآراء. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بهذه الكلمة في الحياة وبعد الممات. waxaa inagu soo foodlay walaalayaal, saad wada ogsoon tihiinba bishii barakeysnayd oo Ramadaan oo ay ka harsan yihiin dhowr iyo 10 casho ama 10 casho ugu yaraan. sidaa daraadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa nabadgelyo iyo caafimaad in uu nagu gaarsiiyo. haddii uu alle inagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaadna, waxaan eebbaweyne subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in aanu khayrkeeda ka faa'iidaysano, khayrkeedana uu ina waafajiyo eebbaweyne subxaanahu wa tacaala, inagana dhigo kuwo sadka ugu wacan ka qaata bisha barakeysan ee Ramadaan. haddaba bisha inagu soo dhow maxaa loo baahan yahay inaan ugu diyaar garowno? waa su'aal isweydiin mudan. bisha Ramadaan ee fooda inagu soo haysa inta aan la gaarin maxaa loo baahan yahay? see u soo dhaweynaynaa? maxaa inooga baahan yahay inaanu samayno? ma inaan raashin iyo cunno badan soo aruurino? way bannaan tahay taas, mise wax ka fiican baa meesha yaalla? bisha Ramadaan see loo soo dhaweynayaa ama loo qaabilayaa? qodobo dhowr ah ayaan rabaa inaan kaga hadlo hadduu alla weyne subxaanahu wa tacaala uu i waafajiyo. qodobka koowaad inaan alle barido oo aad cibaadaysato, inuu alle bisha barakeysan ee Ramadaan uu kugu gaarsiiyo nabadqab iyo caafimaad. hadduu alle ku gaarsiiyana uu ku waafajiyo wixii khayra oo bisha dhexdeeda yaalla. salafku ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwa bisha Ramadaan intaan la gaarin 6 bilood ka hor alle ka barya inuu bisha barakeysan ee Ramadaan ee kusoo fool leh uu gaarsiiyo, si ay ugu faa'iidaystaan cilmiga iyo khayraadka bisha dhex yaalla. nabiguna wuxuu ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi, ku salli nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. waxaa u bakhiilsan qof nabiga lagu soo hadal qaaday isla markaana aan ku salliyin. nabigu wuxuu ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh bil kasta oo dhalata mid yiraahda allahu akbar, allaahumma ahillahu calayna bilamni waaliimaan. ilaahu nagu gaarsii amni iyo iimaan. nabiga sidoo kale isagoo bisha la hadlaya marka ay dhalato, waa bil kastee, wuxuu oran jiray bil yahay rabbigaa iyo rabbigay waa allah subxaanahu wa tacaala. sidaa daraaddeed waa inaan alla weydiisanaa inuuna gaarsiiyo bisha Ramadaan oo ay maalmo yar ka laaban yihiin, waayo xilligaad dhimanaysa ma ogid. 12 cashe bisha Ramadaan ka harsan inuu ay baweyne ku gaarsiinaya ma ogid, oo alla damiin kama haysatid inaad bisha Ramadaan gaarayso. sidaa daraaddeed waxaa lagaaga baahan yahay intaysan bisha Ramadaanba soo gaarin inay ducadaadu barato, alla barigaagu uu bato, ilaahay gacmaha aad u hoorsato, aad ka barido inuu ilaahay uu ku gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan. maxaa yeelay alle wuxuu gaarsiiyaa bisha barakeysan ee Ramadaan qof uu jecel yahay iyo qof nasiib leh. qof walba ma gaaro, waayo dad badan oo bishii hore nala soomay ayaa maanta xabaal ku jira, nasiibna u yeelan waayay in ay gaaraan bisha nagu soo food leh. annaga laftirkayagu ma ogin inaan gaari doonno, balse ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala sidii aan uga faa'iidaysan lahay fadliga ku jira iyo khayraadka ku jira bisha barakeysan ee Ramadaan, inuu alle subxaanahu wa tacaala uu ina gaarsiiyo. qodobka labaad inaan baranno axkaamta bisha Ramadaan ku saabsan.
soonkeeda axkaamteeda uu leeyahay, salaada la tukanaya axkaamteeda, khayraadka bisha ramadaan dhex yaalla iyo axkaamteeda, waxa ku saabsan inaan iyo fiqi iyo fahan ahaanba u baranno, ama fiqi iyo fahan ahaanba aanu u naqaano. waayo haddaadan aqoon lahayn, aadan aqoon fiqi iyo fahmitoona aadan u haysan, siday u kala fiican yihiin garan maysid. waxaa laga yaabaa camal khayr badan isagoo uu ku ag yaallo in aad ku mashquusho camal laga khayr badan yahay. sababtuna waxaa weeye aqoonteeda ma lihid, aqoonteeda ma lihid, oo waa aqoon darro. waayo kala garan maysid labadan camal kee ajar faa'iido badan leh, kee ajarkiisu saa'id yahay, kee mudan inaad waqti badan ku bixiso. marka waxaana laga rabaa axkaamta soonka, salaadaha la tukanayo, waxyaabo walba soon ku saabsan, in aanu ka haysanno faham iyo fiqhi labadaba, si ay noogu kala saarnaadaan ama noogu kala socnaadaan camalka kiisa khayr badan, oo aanu markaa isla markaanu ku dadaalno. allana ma aqbalo camal aan waafaqsanayn sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh sidii uu u samayn jiray. mana samayn kartid haddaadan aqoonteeda lahayn, waana run. alle ma aqbalo camal aan waafaqsanayn sunnadii nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. mana samayn kartid haddii aadan aqoonteeda lahayn, haddii aadan aqoonteeda lahayn. waayo waxaa dhici karta inaad adiga isla saxan tahay balse aysan waxna kuu saxnayn. waxaa laga yaabaa inaad soon tahay, inaad cibaadadaadu badan tahay, isla saxan tahay, balse aadan saxnayn. waxaa dhici karta inaad isla quman tahay balse ay wax badan kaa khaldan yihiin. waxaa laga yaabaa adoo moodaya in cibaadadaadii lagaa aqbalay balse la soo diiday. sababtuna waxa weeye maxaa kuu saxan, maxaa kuu cilmiyeysan, aqoonteeda ma lihid. waayo sababta maxaa keenay waxa weeye maxaa kuu saxan, maxaa kaa khaldan, aqoonteeda ma lihid. sidaa daraaddeed baa diinteennu asaas ka dhigtay shay kasta oo cibaado ah oo alle loogu dhowaanayo aqoon in lagu saleeyo. diinteennu saasay aasaas uga dhigtay. waayo xadiiska 40 ku jira waa tuu lahaa rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, alcilmu qabla alqawli waalcamal. cilmi waxqabadku wuxuu ka horeeyaa, may cilmiga iyo hadalkuba waxay ka horeeyaan inta aadan ficil samaynin. marka waxaa lagu khasban yahay in aad axkaamtaasoo dhan aad cilmi ka haysato. tawxiidka baro, soonka baro, salaadii barta, ganacsigii barta, acmaasha kale barta, balse cilmiyeeya oo waxaad samaysaan asaaskeeda ayay diinta wax walba ku salaysay. wax walba barta, cilmiga barta, ganacsiga barta, soonkii barta, balse ku salee, cilmi ku salee. haddaadan cilmi u lahayn waxba kama jiraan, kamana duwanid nin weel daloole biyo ku dhaaminaya. maanta dhan miyuu buuxsamayaa? jawaabtu waa maya, kama duwanid. qodobkayga saddexaad oo aan ku soo dhoweynayo bisha ramadaan oo istiqbaalkeeda ku saabsan waa inaan la imaanaa go-aan adag oo qalbiga ah oo casiim ah. qalbigaagu markuu go-aan adag la yimaado oo ay kaa dhab tahay inaad bishaa ka faa'iidaysato, qalbigaaga iyo niyadaada ayuu ilaahay wax kugu siinayaa. haddaadan go-aan adag la iman wax badan kuu suuroobi maayaan. saa daraaddeed ayuu nebigu wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh, ina allaha laa yanduru suwarikum walaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum. ilaahay jirarkiina iyo jirkiina iyo sawirkiina iyo quruxdiina iyo qaabkiina toonna eegi maayo, balse wuxuu eegayaa
quluubtiina ayuu eegayaa. ilaahay waxaa qalbiga dhex yaalla ayuu fiiriyaa. sidaas ayuuna wax ku bixiyaa alle subxaanahu wa tacaala. qofka qalbigiisa ayuu fiiriyaa waxa dhex yaalla iyo waxa ka buuxa. sidaa daraaddeed ayuu eebbaweyne subxaanahu wa tacaala wax ku bixiyaa. markaa niyadda adag iyo qasdiga adag rabbigaa waxaad tustaa oo qalbigaaga ka tustaa in aad doonayso inaad bishan ka faa'iidaysato sida ugu badan. ilaahay tus subxaanahu wa tacaala qalbigaagana ka dhex tus in aad doonayso in aad bishan barakaysan ee Ramadaan aad si qasdi ah oo dhab ah oo xaqiiq ah aad uga faa'iidaysato. eebbaweyne subxaanahu wa tacaala kadib qalbigaaga ayuu fiirinayaa, qalbigaaga ayuuna wax kuugu qabanayaa. markuu rabbigaagu wanaagaaga qalbiga ka arko eebbaweyne subxaanahu wa tacaala markuu wanaaga qalbigaaga ku jira uu qalbigaaga gudihiisa ka dhex arko wax badan ayuu kuu fududaynayaa. qodobka afaraad oo aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo ayaa wuxuu yahay inaan la imaano qorshihii aan bishan Ramadaan kaga faa'iidaysan lahayn. sax, khayrka waad jeceshahay, soonka waad jeceshahay, salaada habeenkii taraawiixda salaatuleylka waad jeceshahay, sadaqada waad jeceshahay, inaad cumraysato waad jeceshahay, in aad qur-aanka akhrisato oo aad khatimto waad jeceshahay. laakiin waan jeclahay keliya kuma filna. waan jeclahay oo keliya kuma filna. waa inaad la timaadaa aaliyadii iyo qaabkii aad u qaban lahayd barnaamij camaliya iyo jadwal. waa inaad samaysato barnaamij camaliya iyo jadwal waa inaad samaysato. waayo bini aadam ayaa tahay, adduun ayaa kugu xidhiidha, shaydaan baa kugu lamaan, naftaadaa ku jihaynaysa. haddaadan balayn iyo qorshe aadan samaysan wax badan kuma suuroobi doonaan. waayo rasuulkeennu waa tuu lahaa assaaca wasaaca, assaaca wasaaca. ganacsadaa tahay mithaal, bisha Ramadaan iid baa ku xigta, iiddii baa soo gelaysa, baayac mushtir fara badan baa kala soconaya, dhaqdhaqaaqii baa ganacsi yeelanaya, siiba ganacsigii suuqa aad u baaxad weynaanaya, kala iibsiba dhaqaale fara badan baa dhacaya. waxaa laga yaabaa in uu shaydaan kugu mashquuliyo ganacsigaaga. waxaa laga yaabaa in uu shaydaanku yidhahdo habeenkii oo dhan haddii aad soo jeedo oo aad alle dartii taraawiix ama taajid u taagnaato aroortiyaa shaqadaadii kuu tegaya. waayo bisha Ramadaan waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaad iyo khayr uu dhex dhigay. dhinaca kalena ganacsi baa ka dhinac socda oo bishii ciideed ayaa ku xigta ee dadku adeegan jireen. markaa sidaa daraaddeed waa in aad samaysataa jadwal. jadwalkaas oo ah mid aad naftaada ku maareynayso, saacadaha waqtigaaga inaad samaysato. bishan Ramadaan ma aha bil hurdo. qofka bini aadanka waxaa loo baahan yahay bishan barakaysan ee Ramadaan inuu hurdada yareeyo. waxaa kaloo loo baahan yahay inuu cibaadada badiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay inuu quraan akhriska badiyo, hadduu awoodo dhowr jeer uu qur-aanka dhammeeyo. waxaa loo baahan yahay qofku in uusan nasan. waxaad arkaysaa dad badan oo kule waa sooman nahay, maalinkii oo dhan na hurdaya, aan salaad tukanayn, duhur u kacayn, casar u kacayn, habeenkii o dhan na soo jeedaya. taasi soon maaha, waa dameer af xiran weeyaan. waayo soonta waxaa loogu talagalay in aad ku dhibaatooto, in aad gaajo ku dareento. xigmadda halkaa ku jirtaa ayaa waxa ay tahay in marka berri afka la furo qof maskiina haddii aad waddada ku aragto u beernaxdo oo aad dareento gaajadu waxa ay tahay. xigmadaha laga leeyahay ayay soonta ka mid tahay. waxaa lagu dareensiinayaa gaajadu xanuunka ay leedahay. waxaa lagu dareensiinayaa maadaama adigu aad daragsan tahay mid walaalkaaga oo gaajaysan inuu dariskaaga yahay. waxaa la rabaa in aad beri ka maalin u naxariisato. Ramadaanta waxaa yaala waxyaalo aad u qaaliya. waxaa ka mid ah sadaqada. bisha Ramadaan waxyaalaha aadka ugu qaaliga ah waxaa ka mid ah sadaqada. sadaqadu waa ka faa'iida iyo ka khayr badan tahay bilaha kale marka loo eego bisha Ramadaan.
sadaqadana ha lagu dadaalo waayo sadaqadu ramadaanta way ka muhiimsan tahay sadaqooyinka kale ee la bixiyo waana in lagu farxo imaanshaha bisha ramadaan maaha in laga murugoodo waayo dad badan oo ka naxaya ayaa jira maanta imisa ka haray 9 baa ka haray dad fara badan oo ka naxaya jira waayo iyagu ma rabaan inay soomaan dadku marka alla bay u qaybsamayaan dad waxay u qaybsamayaan ilaahay uu gaarsiiyey bishii ramadaan dadka uu ilaahay gaarsiiyey bishii ramadaan ee fursadda u helay baa laba u kala qaybsamaya qayb waxay noqonaysaa qayb ilaahay khayrkii uu waafajiyey oo bishii ramadaan ka faa'iidaystay sahay wacanna ka qaatay qaybna waxay noqonaysaa qayb aan ka faa'iidaysan oo nafteedii iyo shaydaan raacay waa dadka ka naxaya soo dhawaanta bisha ramadaan marka waxaan idin leeyahay aan u wada diyaar garowna bisha ramadaan وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك